أنت سنة لقى جواب أنت أنا كجواب سؤال لبضان قبيلة سعدية للكسر محايسكو هايستان أنت أنا كجواب waxaan rabaa inaan idin sheego oo horta meesha ka beeniyo tag la dilayna inaan la isku haysan deegaan la kala haysto oo lagu dagaalamayo maanta inuusan jirin waxaas wax ka duwan in la isku haystaan rabaa inaan idin sheego horta waxaan rabaa daliisha inaan idin siiyo inaysan ahayn rag la kala laayay ma ahano dadka nabadaaba rag waa kala laayaan nin iyo laba waa kala dilaan iyo saddex reeraha nabada ah waxaad ku ogaanaysaa sacad inta la degan ee dariska laahi nin iyo laba waa ka dilaan weerarna iskuma ahan hubna isma qaataan isma xasuuqaan waxa kale oo daliil ku ah inta leel kaste ku hareeraysan oo deegaanka Galdood ku hareeraysan xuduudka la leh oo ay ka mid tahay xero jaalle maaneed bursaalax dhudub saaxo intuba leel kaste nin iyo laba waa ka dileen cunna lama gelin hubna looma qaadan marka haddaan meesha wax ku jirin maxaa markay sacad nin dilaana cul loo geliyaa hub loogu qaataa oo technical loogu weeraraa markay dadkaas Galdood dariska la ah xuduudkaas leelkasta dariska la ahna ay nin iyo laba dilaan odayaal loogu diraa hadaan meesha wax ku jirin taas waxa ku tusaysaa waxa meeshan lagu dagaalahayaa labada dhinac midna ma ahan kuma saabsan rag la kala laayay dadka nabadda nin iyo laba waa kala dilaan ismana weeraraa meel walba ka jirta reer daris oo nin iyo laba kala dilin ma jirto halkaas marka daliishi waxaan ku beeninayaa waxyaabaha shirka la keenayo rag la kala dilay ama dil inuu ku dagaalkan ka kacay kama kacin qodobka labaad raba inaan beeniyo oo shirarka maalin walba la keeno oo waxba kama jiraanka waxa weeye deegaamo la kala haysto taas waa been waxaan ognahay sacad inay Galdood dhaafeen oo maaneed iyo Galdood inta u dhaxaysay caliyaalo iyo dhul ay daaqayeen ayagoo wax loo geystay wax dhibaato aysan jirin dhinaca kalena leelkasi ay daaqayeen saaxaqurun iyo inta u dhow yeelaan laan waale ay daaqayeen oo barkadaha ay barkadoodii ku yaalay saaxaqurun ay ka cabaayeen marka meeshaani waxa la isku haystaahi ma ahan 35 ugu dambeysay sano ugu dambeysay dhulkaani waa banaanaa mar waxa jirtay saaxaqurun iyo Galdood aan loo dhaxayn qofkii dhul rabaa marka waagaas uu qabsan lahaa markaas ayuu hadii sacad dhul rabaan dhul qabsan lahaayeen dhul boob yihiin hadii leelkasta dhul boob yihiin ama dhul ka maqayna xilligaas ay qabsan lahaayeen meesha waxa kaliya oo ka dhiman waxa weeyaan nabadgelyo ka dhiman su'aasha marka jawaabteed loo baahan yahay waxa weeyaan hadaysan labadaas midna ahayn oo daliisheedii aan siiyay maxay isku haystaan waxa ay isku haystaan waa maxay ee saxda ee dagaalku ka joogsan la yahay oo maalinba markii heshiis la dhaxdhigo dib u kacaya haddaan idin sheego arrintaas waxa la yiraahdaa qab baa la yiraahdaa qab erey waxa jira caan oo la yaqaano Soomaalidu ereyga caanka ay aadka u taqaana waxa weeyaan ereyga yaalad oo qab uu ka horeeya waa yaalad inta la isku qabano qabyaalad aysan noqon yaalad macnaheedu waxa weeyaan markii dilka iyo dhaca iyo kufsiga iyo dhibaatadaas dhacaan weeyaan laakiin erey ka horeeyo sababa waxa weeyaan qab abwaankii waa tuu yiri qab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weydaa mid kalena wuxuu yiri qabkaad midug la joogtaan rag waa isku qatalmaysaa labadan qolo waxa dhex yaala waa qab waxaana u sheegayaa dadka daba heshiisiinta wada labadan qolo inay dhexdhexaadiyaan raba ha ka hadlaan qabka labadan qolo isku hayaan qoys nabadgelyo uma ogola qoys uma ogola nolol meesha noloshii baa la isu diidan yahay qoys caafimaad qaba oo sacadihi in reera leelkasaay oo nool ay soo agdagaan ma rabaan reer leelkasaana qoys sacad oo nool inay soo agdagaan ma rabaan marka meesha qab baa ka jira qabkuna waa wax Soomaaliya oo dhan qaribayo wax la yaqaano saacadan ka bacdi waxa laga garnaqi doonaa waxa weeyaan qab ma aha nin la kala dilay iyo nin la kala dilayna ma ahan dhul la kala haystana ma ahan dhulku nabad buu ku deeqaa nabad buu dadku ku deeqaa dhulku waa la wada degayaa ma sha la wada deganaa darhad baa la wada deganaa waagan dhasha la wada deganaa inta aqliyeysay baa la wada deganaa hadeer sanad ka hor baa la wada deganaa dhulka waa la wada degayaa dadkuna nabadgelyo waa ku wada degayaan 5,000 haday xakaana 5,000 ka dhimato sacad yeelka sana 5 ka dhimatana dhulkan waa kii la wada deganaado mundul ka guurhayana ma jiro laga fogeynaya ma jiro barkad laga fogeynaya ma jirto carish laga fogeynaya ma jiro taas horta dadku wayna ogaadaan